wasiirka wasaaradda gaashaandhigga jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa weerar afka ku qaaday madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. Wasiir Fiqi ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Puntland inuu ka shaqeeyay kala qaybinta dalka isla markaana uu xiriir la yeeshay shisheeye iyo dhinacyo ku tilmaamay inay cadow ku yihiin Soomaaliya. Sidoo kale waxa uu ku eedeeyay in uu taageeray ama gacan ka geystay xasuuqyada ka socda dalka Suudaan. Dhinaca kale wasiir Fiqi ayaa sheegay in Siciid Cabdullaahi Deni oo 4 sano u dambeeyay ka shaqeynayay kala qaybinta iyo kala jaridda dalka dhinaca kalena qaaday tillaabooyin khatar ku ah midnimada iyo wadajirka Soomaaliyeed uu maanta doonayo inuu dadka Soomaaliyeed baro wadaniyadda. Dhinaca kalena waxa uu sheegay inaan loo dulqaadan doonin aragtida qabyaaladaysan ee Siciid Cabdullaahi Deni uu gadahayo. Qoraal uu ku baahiyay barihiisa bulshada ayuuna ku yiri sida tan: Siciid Deni hogaamiyaha Puntland 4 sano ayuu lahaa xiriirka ayaan u jaraya dowladda federaalka Soomaaliya. Wuxuu ku tuntay wax kasta oo astaan u ahaa midnimada ummadda iyo dowladnimada Soomaaliya. Wuxuu kala saftay shisheeyihii la ishaayay. Wuxuu taageeray kala go'a dalka. Wuxuu gacan siiyay xasuuqyada walaalaha Suudaan ay cadawgu u geysanayaan. ninkii yiri waan jaray xiriirkii dowladda iyo wada shaqayntii waajibka ahayd dowladda Soomaaliya, haddana xiriir toos ah la dowladaha ajnabi ah oo halis ku ah jiritaanka iyo midnimada dalka. Muxuu maanta shacabka u sheegayaa isagoo isu ekaysiinaya nin Soomaaliya u damqanaya? Ninka noocaasa ayaa maanta ka hadlaya mustaqbalka Soomaaliya, iskana dhigaya nin wadani ah oo cashir wadaniyadeed ina siinaya. Soomaaliya waxay ka gudbaysaa marxalad ay talada dalka ku yeeshaan kuwa diidan jiritaankiisa iyo midnimada. Shacabka Soomaaliyeedna waxa ay ka bislaadeen ku awrkacsiga qabyaaladaysan ayuu ku soo koobay qoraalkiisa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Axmed Macalin Fiqi. Weerarka Axmed Macalin Fiqi ayaa ku soo aadayay xilli maalmihii u dambeeyay madaxweynaha Puntland uu ku sugnaa magaalada Muqdisho isagoo ka qayb galaya shir u dhaxeeyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo mucaaradka oo lagaga hadlayay arrimaha doorashooyinka, wax ka beddelka dastuurka iyo sidoo kale marxaladda siyaasadeed ee kala guurka ee dalka. Dhinaca kalena wadamada beesha caalamka ay soo saarayeen war saxaafadeedyo la xidhiidha in dowladda federaalka Soomaaliya iyo mucaaradka ay miiska wadahadalka iskugu yimaadaan si loo dhammaystiro xaaladda kala guurka ee xilliga Soomaaliya ay ku sugan tahay. Balse dowladda federaalka Soomaaliya ay dhammaanba arrimahaasi dhagaa ka furaystayna sheegtay in muddaxileedka rasmiga ee dowladda uu yahay 2027. Dhinaca kalena madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku mashquulsan yahay kala shaandhaynta xukuumadda iyo golaha baarlamaanka. Sidoo kale hadalka Axmed Macalin Fiqi ayaa ku soo aadaya xilli madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo ka qayb galay shir ka dhacay magaalada Muqdisho uu ku dhawaaqay inuu taageerayo urur midnimo doon ah oo ka shaqeeya arrimaha Soomaaliya iyo sidii dalka la iskugu keeni lahaa. Dhinaca kalena uu sheegay in xidigta shanta ahayd ee horay ay uga tageen dalalka Djibouti, deegaanka Soomaalida iyo NFD uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hadda jinaasadeeda ku tukanayo. Dhinaca kalena Soomaaliya ay sii wada joogi doonaan isagoo ku hanjabay in 15 May wixii ka dambeeyo Puntland ay qaadan doonto go'aan. Dhinaca kalena war saxaafadeed ka soo baxay 2 maalmood ka hor Puntland lagu sheegay dowladda federaalka ee Soomaaliya maamulka koonfureed, taasoo noqotay tillaabooyinka Siciid Cabdullaahi Deni uu bilaahi u dambeeyay qaadahay isagoo dhinaca kalena wax ka bedel ku sameeyay astaamihii ciidanka qaranka, gaar ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed. Ku soo duuduubo xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa maalmihii u dambeeyay cirka isku shareeraysay iyadoo mucaaradka iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay isku hayaan hanaanka doorasho ee dalka. Sidoo kalena la isku diidan yahay qaabka hadda wax u socdaan xilli dowladaha shay ay ku mashquulsan yihiin sidii dhinacyada Soomaaliya la iskugu keeni lahaa.